war degdeg ah oo ku saabsan kooxda shabaab oo weerarkii ugu cuslaa kusoo qaaday deegaanka Booshareeri ee gobolka Shabeellada Dhexe kaasi oo hoostaga degmada Aadan Yabaal ee Shabeellada Dhexe. Haddaba waa sidee xaaladda deegaanka Booshareeri iyo saraakiil ka tirsan ciidanka oo la yahay iyo xoog kale ayaan idin haynaa. La wadaag saaxiibadaada haddii aad hor noola joogtay, haddii aad nagu cusub tahayna ku soo biir oo ka mid naqa saaxiibadeena. Soo dhawaada saaxiibayaal. Deegaanka Booshareeri ee hoostaga degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa 4 maalmood ka hor ka dhacay dagaal culus oo sababay dhimasho iyo dhaawac tir badan isla markaana lagu jebiyay kooxda shabaab oo weerarkaasi soo qaaday 4 maalin ka hor ayaa maanta mar kale dib u soo weerareen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada deegaanka ayaa ku sugnaa deegaankaasi ee difaacna ugu jiray. Waxaana la sheegay in barqanimadii maanta shabaabka ay soo qaadeen weerar dhowr jiha ah oo ay ku soo qaadeen deegaanka sida saraakiisha ciidamada iyo ilaha dadka deegaanka ay inoo xaqiijinayaan in shabaabka gudaha oo u sii galay qaybo ka mid ah deegaanka ayagoo dib qabadsiiyay ceelkii biyaha deegaanka sii gubay isla markaana qaybo ka mid ah deegaankana dib qabadsiiyeen. Waxaa lagu soo waramayaa in xaaladda deegaanka hadda aad ay u kacsan tahay ayadoo qaybo ka mid ah deegaanka laga maqlayo rasaasta iyo jugta culus ee hubka ee labada dhinac ay isweydaarsanayaan. Booshareeri oo horey looga saaray al-shabaab waxaa shabaab xooga ay saarayaan degmada Aadan Yabaal qabsashadeeda maadaama ay doonayaan inay aad iskugu furaan gobolada Shabeellada Dhexe ilaa iyo Shabeellada Hoose si ay u helaan marin ay ku gudbiyaan maleeshiyaadka go'doonka saarnaa ilaa iyo 2 sano oo lagu qaaday gulufka dagaal oo ka dhan ahaa kooxda shabaab. Toddobaadkii hore ayaa shabaab waxay qabsadeen degmada Ceel Baraf ee Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale deegaano kale oo hoostaga, waxaana taasi sababtay inay hadda ay doonayaan in ay mar kale dhanka Aadan Yabaal xooga ay saaraan si marin meesha ay ugu helaan. Hase yeeshee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa dib u xureynta deegaanka ayaa iskaga difaacay kooxda shabaab waxaana weli soconayo dagaal sida ay inoo sheegeen saraakiisha ciidanka Soomaaliya. Samsam Maxamuud, HBM TV, magaalada Nairobi.